الله وبركاته لما شعبك الصوماليات مال والبوضافات دوليدا aad ka joogtaan soo dhawaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaran TV mucaaradkii aynu ka sugaynay inay afgambiyaan madaxtooyada ee rabay dalkan inay qabsadaan oo afgambiye saldhig boolis inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun shirka isbuuclaha ah ee dawladda federaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maalmaha qabiista ah oo maanta laga soo saaray awaamir aad iyo aad u adag iyo warbixin dhacdadii shalay argagaxa lahayd ay ka dhacday saldhigga Warrigley ee gobolka Banaadir la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim warnimankii Sheekh Shariifow waxaynu ka sugaynaa inaad madaxtooyada federaalka Soomaaliya qabsato Xasan Cali Khayro waxaan ka sugaynaa madaxweyne Xasan Cali Khayro waxa uu tartamaysay gudoomiye maxaa taliye saldhig Khayro Shariifow waxa uu tartamaysay taliye booliis saacido waxaad raadinaysaa taliye booliis madaxtooyada ka rabnay arrintan ceebtani maxay tahay ceebtan saakayto niman dhan oo madaxweyneyaal laga sugay inay dalka ka noqdaan oo saldhig booliis weeraray warnimanka aynu ka sugaynay madaxtooyada qaranka inay qabsadaan oo saldhig booliis qabsaday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun arrin aad iyo aad u nasiib darraa weeye arrin aad iyo aad looga xumaado weeye waxa aad iyo aad maanta waa arrin nagu cusub way dawladda awaamir bay ka soo saartay arrintaasi nimanka waxay yiraahdeen waxay jabiyeen sharcigii hubka xakamaynta hubka ayay jabiyeen qof alla qofkii lagu arkaa mar la dambe asagoo qordhishika ama 7 ama BKM ama RPG ama inta wata lagu arkaa talaabo sharciyaha laga qaadaya wala kala adkaada meeshan buuq ma jiro oo kacsi ma jiro qabiil hebel ma jiro reer soo loo yeelanayo ma jirto dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganaa waa ilbaxeen ka ilbaxay araa iyo xiran wuusan iibsin haddaba waxaan rabaa markay inaan u sheego dawladda federaalka Soomaaliya horta reerka daaroodka liyaado laba dhalo oo boqol ah noogu jirta meesha kuwa federaalada ah meesha hotel jazeera taagan hotel jazeera joogo laba annaga dhalo boqol ah noogu jirta hawiyow saacid faarax shirdoon annaga haddaad noo dishaan waxaan leenahay ra'iisul wasaare hore ayay dileen hawiye wasiirka hore arrimaha gudaha dileen ninka la yaawad labadaba laba aqli leh oo garasho leh labadaba laba xayawaan oo maquuna ah oo aan banaanka iska soo dhignay waana dhalo boqol ah qola lagu qaasheegtaan rabnaa inaan ku qaasheegno hawiye oo aan raan wasiir hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wasiirkeennii hore ee arrimaha gudaha dibadda waxaa diray hawiye ra'iisul wasaaraheennii hore Saacid Faarax Shirdoon Saacid waxaa diray hawiye inaan dhalo boqol ah rabnaa annagu noo qaraxdo waa dhalo boqol ah haddaad taabataan oo dishaan waa dhalo boqol ah waxa magtiisa maxay noqon doontaa ra'iisul wasaare wasiir magtiisa maxay noqon doontaa ilaa aqli dambe aqli cilmiga mar saaka ninka weerarayo saldhig weerarayo waa dhalo boqol ah ninka saaka saldhig booliis weerarayo soo maaha qof ismidaamin oo suusayda ma ah soo qof inuu isqarxiyo raba ma ah ma qof dalka rajo ka qaba ma qof dalka inuu xukumo raba marka annaga adigu hadii kuwiina ay dhalo boqol annaga labadaas dhalo boqol ah noogu jirto daaro Ismaaciil haddaan nahay labada dhalaa noogu jirto midna waa Saacid Faarax Shirdoon Saacid hatta noo cuntaan waxaan leenahay abaar baan idin cayrsanaynaa waxaan ra'iisul Allah ma ninku nin buu ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid Allahu akbar hawiye waxba ka baharayaan ra'iisul wasaare loo dilaa madaxweynaha loo dilaa ninka madaxweyne u ahaa xasana u dhimanayo ma jarteen waxay dhigi doonaan hala kambowe ninkan nin buu ahaa aqoonyahan ayuu ahaa ninka naag hindi u qabay America u joogay ambassador Awad Allahu akbar man caadi ah ma ahayn baan dhigi doonaa illa way aqli cilmiga ma jirto maanta ninka saakay saldhig booliis weerarayo ninka saakay roob la qaawana ag fadhiyo roob la qaawana saakay ninka rajo ka dhax doonay wax ku dhax baadigoobayo iyo Cabdiraxmaan Gorof saakay ag fadhiyo iyo madax kuti saakay ag fadhiyo iyo Shariif ثم والله ag fadhiyo saakayto macnaheedu ma qof caadi ah ma aha qof caadi ah waa dad waalan way khayr madax kuti saakay ninka ag fadhiyo wax ka dhax raadinayo ee saakay cadaalad iyo dawladnimo ka dhax raadinayo ma qof caadi ah may sida la adligeed marka annaga dhalada boqolkaan noo taalo halkaas ay noo taala hadii aad isku daydaan inaad cuntaan waa in ku qaasheeganayna in kama harayso maktib urb cayr bay noqonaysaa
intaasi waa shakaftan niyo waxaa la rabaa mucaarad haddaad maqasho nidaamyo loo maro uu leeyahay anigu ilaa hadda wax mucaarad ah oo inuu wax saxan rabo waxaan ka arkaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nimankani waa u yeerteen inay sawir la galaan bay damceen waa diiday warqad yar buu soo qorayaa waxaan ka xunnahay shacbiga la barakicinaya waxaan ka xunnahay waan u tacsiyeynaynaa askarta ku dhimatay fiiri mucaarad noocaasaa la dhahaa laakiin mucaarad baa suuqa wato oo saldhig boolis weerarayo waa inoo dhimata ma subxaan allahi warsaa xasan iyo gruubka uu watay xisbigiisa saa wax loogama qaadi karo annagoo dhan baa mucaarad xasan ku ah haddaan leenahay laakiin qaabka mucaaradka loogu noqonaya waxay tahay nidaam habaysan oo dawladaysan oo sharciyaysan in loola hadlaa la rabaa laakiin uma wallaahi waxbaan dilaynaa adiga yaa kuu dirsaday odayaa dalka dawladda mas-uulka ah adiga cambaarayn baad leedahay inaad tiraa waa ka xunnahay waxa dhacay shacbiga ha la daayo mikrofonka qabso haddiiba lagu ogolaado inaad shirto dalka dimuqraadiya ka jirto dalkan dimuqraadiya ka jiro mar haddii lagu ogolaado inaad shirto mar haddii lagu ogolaado inaad hadasho freedom of speech in mucaaradku hadlaan dawladda dhaliilaan that is the good waa arrin aad iyo aad u wanaagsan gacanka hadal waa mamnuuc gacanka hadal cid laga ogolaanaya ma jirto sidaa la aadigeed waxaan rabnaa mucaarad ilaa hadda dawladda federaalka soomaaliya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo gruubkiisa mucaarad ku ah oo inuu wax saxo wax bedelo rabo dhaliilaha iyo duldulaalada u muuqdaan waxaa ka jira madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin dawladnimada nidaamkeedii yaqaano waay sharcigeedana garanayo qaabka loo marana garanayo wuxuu xaq u leeyahay dastuurkiisana garanayo laakiin waxaan ceeb waa way xalay cali geedilaha waa cali geedi xalay uu ka yaqyaqsooday waxaan in annaga waxaan la yiraahdo ra'iisul wasaarayaal hore waay madaxweynayaal hore waay waxaan in la dhahaa ceeb waayo dhahay bal hadda adiga ilaahay baan idinku dhaariyay hawiyaan la hadlay hawiyow tan afartaan nin ee soo taagan ee dawlad walba u soo taagan ee adinka reerkiina ah waxaad ku bedeladaan ma weydin afartaan nin ee soo taagan ee dawlad kastaba u taagan waxaad ku bedelataan ma weydin ilmaada reyaalo naga soo bedela afartaan nin soo bedela siyaasad uma bilowno afartaan nin siyaasad uma bilowno ceeb bay qaranka ku yihiin adinka ceeb bay ku yihiin dawladnimada ceeb bay ku yihiin soomaalinimada ceeb bay ku yihiin siyaasadda ceeb bay ku yihiin naga soo bedela rooble daawane iyo khayra madax kuti iyo shariisumo wallaahi iyo cabdiraxmaan muholli naga soo bedela miyaw dadkii aqoon-yahanka hawiye aw ee dalkan siyaasadda ka rabay xaggee aadeen dadkii wax garanaya xaggee aadeen annaga marka maskadab wareegaasaan ku jiraynaa seerkalka ah af cabdiraxmaan cabdishakuur taagan saldhig baan weerarayaa intaan gelayaa caqli ma ah waxaasi maadaryalow hawiyow arrintani arrin caqli gelaysa ma ahan afartaan aduufada iska soo bedela dad soo sharraba mucaarad habaysan oo waxaysan keena fiiri cumar cabdirashiidaa ka cararay sharif sakiinaa ka cararay maxamed mursiyaa ka cararay maxamed mursalaa ka cararay waxaa ka cararay daahir geelaa ka cararay maxay uga carareen waa ma gudbayaal waay waa ma gudbayaal lama qaadan karo war annagu dalkii xilligii gacanka hadalka iyo xabaddii waa dhammaatay dalkan waxaa la rabaa si salmi ah in nidaamkan lagu bedelo si qabow oo ilbaxnimo ah in lagu bedelaa la rabaa oo aysan dhiigna nooga daadan askarina nooga dhiman ee dagaalna lagu gelin dadna aysan nooga dhiman baan u baahannahay lama rabo qoryahan lala ordayay maxay tahay qoryahan lala ordayay tan labaad annaga saaka waa loo qaadan lahaa madaxtooyadii nimanka u weerareen oo ay galeen oo ra'iisul wasaarihii bay soo saareen oo madaxweynihii bay meeshii intuu maqnaa bay inqilaab sameeyeen oo madaxtooyadii qabsay saaka waa idin taageeri lahayn laakiin saldhigga wardhigley oo boliisay weerareen taliska ma aha qaybta gobolka ma aha qaybta weliba cadda ma aha waa saldhig boliis waaye saldhig boliisay weerareen waxaan qaadan karna ma ahee ilma adeerayaalow isu soo habeeya sida nidaamka dawliga iyo qaabka loo marana soo barta iskana dhaafa waxaas dalkan hal mucaarad buu leeyahay hal nin yaa mucaarad ka ah mucaaradkaasina waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo
عبد الله فرماجو وكذا ما علينا سيد شرفت له xilkasnimada leh gobonnimada leh uu iskaga ilaaliyo dhiiqadan iyo wasaqdan inuu wax ku darsado oo banaanka uga istaagay ummadda Soomaaliyeedna way kugu qaadatay maanta musharax u saameynta badan baa tahay dalka Soomaaliyeed dhan baa ku rabto shacbiga oo dhan baa ku rabo dalkii baa ku baahan laakiin qaabka aad samaysay sida aad sharaftaada iyo sharafta shacbiga Soomaaliyeed u ilaalisay iyo taayadii baa annaga haddaan nahay taageerayaashaadii iyo madaxweynaha taageerayaashiisa nahay aad u ilaalisay waan kaaga mahadcelinaynaa waxa ceeb nagu ahaan lahayd roob laqaa waan ula taagan yahay waxa ceeb nagu ahaan lahayd shariifsimo wallahi buu la taagan yahay waxa ceeb nagu ahaan lahayd cabdiraxmaan maholli buu la taagan yahay waxa ceeb nagu ahaan lahayd غير مدح كنت بقول تاجين ما قد بيال بو أكبر يستي وشر جرايد لقى بنيا واحد شريف سكين كعيش فاضي بوساك أكبر يا وتاجم هاد علينا عدنا هاي ضدك صوماليات وقامين تدو وناكسن تاجرسن أنا جايين للدرة مرة منو إن حبد للرده مرة منو وحاربنا إن ضدك يتبدل كل عصي نبضة ضل كان لجوه قامية سن نبضة مرة منه صليق لويري مرة من القفل الدلي مرة من عراد مرة من دباتو وحين ربنا النبت نبت بان ربنا هذا الشيخ محمود هدي أنا وقان كيسينا فوق فتاة ربطه نظامي الله صو مراجلو نظامي أصينو مرينا لكن صليق رجلي معارض كيد أساكي وقاضة فالحمد مدحتويدي بويرين وقفصدين وقاضة لاين لكن صليق ورجلي بيقف جنبيين مدحويني يطلق مقن marka nimankan taliya booliis bay raadinayeen nimankan qayr madax sabuuliyo roob la qaawanay ma waxay raadinayeen maxay ahayto saldhig booliis ma aqaano taliya booliis bay raadinayeen mise madaxtooyadu socdaan nimankan haddaba markii halka xaalad marayso waxaan leenahay arrinta hala dejiyo niman yahow nidaam shuruucda dalka oo idan siinaya hadduu xakan sheekh maxamuud yiraahdo ma hadli kartaan hadduu yiraahdo idamada leeli kartaan xaq baad u leedihiin shacbiga Soomaaliyeed inay banaanbax sameeyaan isu soo baxaan idin garab istaagaan waa idin garab istaagayna laakiin qoriyaan qaadanaynaa oo xasiloonidii iyo nabadii dalka ka jirtaan annaga xabad baan qori ku raadinaynaa cid in taageeraysa male cid in rabtana male annagu waxaan dhihi lahayn qabaa'ilada ka soo jeedaan naga soo bedela waxaan soo bedela aduufadan soo bedela qashinkan soo bedela odaga miskiinka saacid la soo lugeeyay qashinkii oo ila madaxweyne farmaajo iska cayriyay qashinkii farmaajo u cayriyay oo iska cayriyay inta soo qaateen habeenkii qaad murduf qaad u geeyaan maalintan soo qaadanay waxay keenayaan hotel jaziiro waa anagu waa siganay khatar baan galnay wuli khatar baan galnay ilaahi baan idinku dhaariyay saakayto ninka caananuug oo caananuug shalay dhahayay jaajuuska Axmed Madoobe u ah shalay dhahayay cali dheera ka cadaalad fiican madaxweyne xasan maxamed ilaahi baan idinku dhaariyay cali dheera argagixisa amaanay ma wax qof maanta dalka rajo ka qaba fariista ma wax saaka xasan bariif firin bil fariista siyaasadda barashay rabtaa dani baa xitaa in ka cararay danigii miskiinka aeroboortka ku xirnaa baa idin hayimaana waayo qofka isqiimeeyaa la qiimeeyaa qofka qiimaha lahaa la qiimeeyaa qofka wax garanayaa la qiimeeyaa qofka sharaf lahaa la qiimeeyaa inuu adeerayaalo marka waxaan leenahay hala diyaar garoobo nimankaasna waxaa weeye waa cadowga ummadda waa cadowga dalka qof alla qofkii kuwa arko meel ha saaro shacbiga gobolka banaadir waxaan leenahay xasiloonadiina iyo nabadiina ilaalsada dalkan waa dimuqraadi madaxweyne xasan maxamuud doorasho dimuqraadi ku yimid waa la doortay dimuqraadiyad doorasho uu ku baxayaa annaga qoryo iyo edab darro iyo barakicin iyo shacbigan maanta nabadda ku naaloonaya ma aqbalayno warkaas inuu cad yaa rabaa qofkii waxaa isku dayana la iska dhiciyo dalkan hal mucaarad buu leeyahay mucaaradkana waa farmaajo cid kale mucaarad aan ma hayo